Darawallada baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosho gobolada Somaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabta xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen dhinaca liisamada oo xukuumadda Somaliland ku amartay inay qaataan liisamo cusub isla markaasina ay iska bedelaan liisanada ay hadda isticmaalaan. Darawalladan ayaa sheegay in liisamada ay hadda haystaan ay yihiin kuwo sharci ah isla markaasina xukuumadda Somaliland ugu baaqay inay arintani wax weyn ka qabato. Somaliland baa ii goysay cashuur laguma laha bil la iguma leh waxa la igu yiri keen mid barooyana lacagtii keen dawladdii hore ii jartay may dhicino Soomaaliya ma qabsantay waa Somaliland wuu ii cashuuray bil la iguma laha halkan dhig baa la igu yiri liisan cusub lacagtii halkan saar liisankii cusub lacagtiisi baan halkan saar waan sitaa juwankii oo aan jeebka ku sito xagaan la tagaa wasaaradda la tigaysa wasaaradda markaad la tagto liisankii waa laga xaraynaya juwankan aad wadada ku maraysaa baa leeyahay juwankan wadada aan ku marayso laantii taraafikada ee wadooyinka joogtay nama khuseeyo bay tiri darawaliintii liisamada intii laga xareeyay wasaaradda lagaga xareeyay juwankaas aad wadada ku maraysaa baa leeyahay 420 kuna ee aanu ku jarnay laantii taraafikaduna waxay isu taagtay wadadii nama khuseysay bay yiraahdeen warqadan maaliyadu ay goysay liisankaagi darawal oo keen gaariga baakin kare 420 darawal baa imaka wasaaradaha hortubano gawaadhidoodu suuqa ay taala oo liisankii taraafikada u mari kari waayay suuqa liisankana inuu ilaahay mid ka dhigo mid shaqeeya ilaahay loo weydiiyo ilaahay noo shaqeeya ilaahay dawladdu way shaqeysaa liisanku noo shaqeeya waa kan ku shaqeysanaa reer ku misaarsan ilaahay uu noo shaqeeya baa leenahay inta waxaan dhaafsiinaya dadkan waa dareewalin gaadiid ma laha gaadiidka liisanka waxa lagu kaxeeyaa gaadiidkii lagu kaxeyn lahaa waa bilaa camal liisankan ninka dareewalka ee maanta liisanka haysta leeyahay bedelo 800 kun keen 800 kun ninka maanta keen ee bilaa camalka ahi halku ka helaya gaarigii uu ku shaqeynayay baabuurtu ka shaqeeyo ka baarkiga yaala bilaa camalka dawladdu wax shaqo waran waa sameeyeen Ethiopia shaqo loo sameeyo gaarigii shaqadu ka shaqeynayay wax ka shaqeeyo baabuur Ethiopia ka soo casuuray oo la soo casuuray haddaan Ethiopia ka casuur lahayn Ethiopia waxay gaariga watay 8 kun dollar gabi usbaahi waa 12 kun dollar casuurtiis waxaan lagu soo daayay 20 kun gaari oo siidanaya oo shaqadii gaariga ka shaqeyn lahayn haya sidaa darteed waxaanu leenahay maanta liisankan ka hadlaynaa liisankan cashuur anagu u baan u haynaa cashuurta laga qaadi jiray ayuu liisankan u haynaa madaxweyne sidaa darteed wasiir baan leenahay waxa la yidhi waxa caanamaal oo badan kula maasho hadduu gaadiidka iyagu iyo waxa iyagu ay bilaa qiimo noqdaan waxaan qabaa wasiirka loo magacaabina inuu nala qaban bilaa qiimaha inuu nala qaban ayaan anigu qabanayaan sidaa darteed waxaan leeyahay dadkan liisamada ku shaqo tageen هلو قدر يمدن مدحوينه وهلو قيمه وهلو عشوره وحاسير يبقى مصاريف ومواطنين أنا waxaan nahay darawaliintii gaadiidka Somaliland ku shaqeysanaysay haddaanu nahayna waxaan ku wax allaale iyo wixii aanu ka shaqeyn jirnay xamuul guri jirnay gaadiid Ethiopia leeday ayaa waxaan ku oosjiida ayaa gaari walba lagu soo casuuray $2,000 kaan wadana dalka Ethiopia ka casuurtan waxa la leeyahay $12 keena wadanka iyagiiba waxaan ku noqday bilaa qiimo iyo adduunka iyagii waxaan ku wixii aan guri jirnay gaadiidka Ethiopia ku raha ee gaadhoba $2,000 laga qaaday waxa la wixii aan ka shaqeyn jirnay waxaan ku anagoo bilaa camal halka tuban ee haddana lagu yiri niisankii gaadiidka aan ku wadnay Amiin Maxamed Ahmed TV-ga caalamiga Universal